gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiri ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay gudida qabanqaabada iyo dabaaldega xuska munaasabadda 18 May ee lagu qaban doono magaalada Burco ee gobolka Togdheer. gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiri oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa sheegay in gudida qabanqaabadu oo ka koobnaan doona dhowr iyo 10 xubnood ay ka shaqeyn doonaan muddada hadhay qabanqaabada iyo weynaynta maalintan qaran ee 18 May oo ah maalin ku xidhan qulubta shacabka reer Soomaaliland. waxa uu ugu baaqay barasaabka gobolka Togdheer bulshada gobolkani mintuulo ilaa degmo in loo diyaar garoobo xuska dabaaldega maalintan qaran. waxaan halka ka dhawaaqaynaa guddiga qabanqaabada dabaaldega ama xuska ay dhimay guddidaas oo ka kooban barasaabka gobolka gudida fulinta gobolka iyo gudida fulinta ee degmada leeyaasha ciidamada kala gedisan saddexda qaybada ciidanka waxaan go'aan ka soo sheegi doonaa gudida dhaqaalaha ururinta ee gobolka haddii aan la yiraahdo waxaan doonaynaa inaan gaarsiino oo ogeysiino ummadda in loo diyaar garoobo xuska ay dhimay oo si weyn loo soo qayb galo wixii hawlaha dambana guddidaas soo saari doona. maayir ku-xigeenka degmada Burco ahna ku simaha duqa degmada Maxamed Xasan Jaamac Xode ayaa isaguna ballan qaaday geestiisa in dawladda hoose Burco ay door muuqda ku yeelan doonto qabanqaabada iyo dabaaldega xuskan. Shafiil waa ogeedin la ictiraafay waxaynu u baahanahay sanadkan inaynu muujino runtii xuduudeena iyo barnaamijkeena iyo diyaar garowgeena dadweynaha reer Burco waxaan u boorinaynaa inay arrintaas si weyn uga qayb qaataan ama xagga dhaqaale ha noqoto ama xagga qabanqaabada ha noqoto ama xagga soo bax ha noqotee. Cabsaaq Far Cabdilaahi TV-ga qaranka Soomaaliland Burco.